ciidamada ammaanka howlgal ay sameeyeen ayay gacanta ku soo dhigeen mid ka mid ah wadaadada qur-aanka dadka saara oo lagu eedeeyey inuu qur-aansaarka si qaldan u adeegsaday. ninkan oo magaciisa aanu u sheegi karin sababa sharciga la xiriira waxaa loo haystaa inuu u galmooday oo carruurna ka dhalay gabar Soomaaliyeed oo reeraheeda u geeyeen inuu quraan saaro. ciidamada amniga maamulka gobolka Banaadir iyo kan degmada Shibis ayaa xaqiijiyey inay socdaan baaritaan arrintan la xiriira dhawaana la soo bandhigi doono cadaymihii iyo goobihii falalkan ay ka dhici jireen. gabadha intaas leeg inta yiri quraanaan ku saarayaa faraxumeeyey dhibaateeyey uur u yeelay uurkina ku inkiray ciidamada booliisku qabteen xabsiga la geeyey la soo daayey oo si sharci darro ah loo soo daayey inay maanta mar kale ciidanku qabtaan gobolka Banaadir sharafay u tahay ummadda Soomaaliyeedna sharafay u tahay dawladda Soomaaliyeedna sharafay u tahay maanta waxaan gacanta ku soo dhignay nin dambiile ah oo gabar yar farxumo ku suubiyay cadaaladda la horgeeyay oo haddana la soo daayay laakiin insha Allah ma dhici doonto qof intuu dambi ka galay inta la qabto la soo deeyo muddo 6 bilood ah ilmo jira ayuu ku inkiray inta ka dhalay oo yiri waa ku daaweynayaa wax ku quraafaad ku akhriyay kadibna ma dhalin buu yiri wuu inkiray maxkamad baa la geeyay maxkamadeenu waxba kama sheegi karan laakiin waxay ku soo daayeen si cadaalad darro sababtoo ah qofkan gabar Soomaaliyeed uu faraxumeeyay ilmo ka dhalay waxay ahayd in waajibka uu leeyahay la mariyo ayadoo la marin baa la soo daayay sida awgeed annaga qawaaniintu waxay qabtaa qofkan dambiga uu galay in lagu qaado haddii la fasaxay annagu dambi cadan ku haynaa haddii maxkamaddu soo fasaxday ayuu dambi cadan ku hayno ma daynayno waa xiraynaa. maxamed cali weheliye Universal TV magaalada Muqdisho.